galmudug madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug iyo xubno kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka soo horjeestay go'aanka uu madaxweynaha maamulkaasi ku qaadacay shirka caalamiga ah ee looga hadlayo Soomaaliya ee khamiistan ka furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kulan ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada ee maamul goboleedka galmudug ayaa lagu go'aamiyay in maamulku uu ka qayb galayo kulanka ka dhacaya wadanka Turkiga ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya kulankan oo shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cabdisamed Nuur Guuleed ayaan goor dhaweyd khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo aan kula xiriiray waxaan ugu horeyntii aan weydiiyay bal kulankaasi ajandayaasha looga hadlayay maanta oo taariikh ah 29 bishii shanaad waxaa shir isugu yimid golaha wasiirada dowladda gobolka galmudug isagoo ajandihiisu ahaa warmurtiyeed maalin dhaweyd ka soo baxay magaalada Arisooba oo madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland ay gaareen in shirka Turkiga ka dhacayo aan la tegayn markii arrinkaas soo yeeray ayaa waxaa aad u kacay ku dowladda gobolka galmudug golayaashiisa sida golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka oo arrinkaas xukuumadda yiri waa in laga jawaabaa oo go'aan laga qaataa midaysan maadaama go'aankii la gaaray iyo qodobada lagu qaadacay shirkaas aysan dadkii qancin sidaas awgeed ayaa shir degdeg waxaa qaatay golaha wasiirada wuxuu isku raacay in shirkaas uu shir muhiim yahay loogana hadlayo arrimaha Soomaaliya aysan ahayn wax munaasab u ah maanta reer galmudug in aan laga qayb gelin uuna kursigooda banaanaado maadaama geedi socodka nabadda Soomaaliya shirkaas looga hadlayo maadaama roadmapkii uu ka mid yahay shirarkii aan tegi jirnay maadaama dowladda Turkiga oo walaalaheena oo dadka Soomaaliyeed soo gurmatay xaaladii xumeed ee macluusha ahayd markii lagu jiray ay tahay hawshii koowaad oo ay fidisay in aan wax shuruuda oo weyn annagoo aan wadin inaan shirkaas ka maqnaano inaysan noo cuntamin ee aan ka qayb galno ayaa ka soo baxay golaha wasiirada dibad iyo gudaba reer galmudug dadka jooga iyo wasiirada maqan dhammaan waa la xiriirnay in shirkaas la tago waxaana jecelnahay sida ugu dhaqsiyaha badan shirkaas inaan booskeena u buuxin doono haddii raadin waa ku gartay marka go'aanka marka uu qaadanayay madaxweynaha waa mas'uulkii ugu sarreeyay ee maamulkiina galmudug markii uu go'aankan qaadanaya ama ka hor intii uusan go'aankan qaadan wax la tashi ah ma la sameeyay golaha wasiirada iyo guud ahaan maamulka galmudug oo ay taladu kala dhaxayso maya kula caashay waayo haddii ay dhici lahayd waxaa dhici lahaa inaan iskhilaafka ama golaha wasiirada uu safadhi kala galeen madaxweynuhu go'aanka wuu qaatay meeshana waxa weeyaan golayaasha waxaa loo sameeyey haddii madaxweynihii wax degdeg qaatay in golayaashu ay ka daba yimaadaan oo yiraahdaan shirkaas waa tagaynaa ama waxaas wax noo cunto maaha ama mustaqbal ahaan ama haddaba marka madaxweynuhu ma soo hadlin markuusan soo hadlina golayaashii waxay goosteen in madaxweynuhu waa hay-adda ugu sarreysa madaxweynenimada ee dalka laakiin keligiis qof wadanka ka taliya ma jirto dadka oo dhan iyo golayaasha oo dhan baa wadanka ka wada taliya khilaafna ma aha waxa lagu khilaafsan yahay ma aha saddex golo waa isku raacsan yihiin deegaankiina hadda annagaa joogna marka arrinku kalo ma lahayn markii hore ma garata markii uu go'aankaas qaatay ee aad maqasheen kadib ka hor intii aanan qaban kulankan maanta aad isugu timaadeen wax wada hadal ah oo toos ma la yeelateen isaga waa isku daynay waa noo suuro geliyay marka maxay hadda idinla tahay mar haddii madaxweynihiina uu go'aankaasi qaatay adinkuna aad jirteen oo go'aankaasi aad qaadateen maxay idinkugala muuqataa markaa waxay noola muuqataa annagu go'aankeenu waa go'aan dadkii inta badneed ee golayaasha ay qaateen oo ka midaysan yihiin in madaxweynuhu ahaada midkaan aan qaadan oo nala qaadan doono haddii sidee dadka reer galmudug ama bulshada kale idin dhegaysanaysaaba ay u fasiran karaan in go'aanu madaxweynihiinii qaatay inaad adinkuna intaad kulan qabataan aad tirahdaan madaxweynaha arrintaasi kuma raacsanin oo wixii uu diidan aad tirahdaan waa samaynaynaa sidee taasi loo fasiran karaa waxaa loo fasiri karaa maadaama dadku mas-uuliyiin uu doorteen haddana ay ka wada hadlahayaan dhammaantood idaacadaha hadday yihiin baarlamaankii hadday yihiin golaha guurtay hadday golaha xukuumadda waan u hadlahayo in waxaa la qaadanayaa wixii saxa waa dadku qaadanayaa ma aantina dadweynaha ayaan ana u shaqeynaynaa dadka iyaga laftigooda ayaa dadkii noo yimid marka wax laisku haya oo meesha maba jiraanba oo aan ahayn in madaxweynihii go-aankaas uu marka hore qaatay annaguna markii kadib aan la dadweynaha dibadda iyo gudahaba inta joogta ee jaaliyadda reer galmudug meel walba ay joogaan waxaa soo baxday in shirkaas aan maanta la tago oo aan kuraaska galmudug ay ka banaanaan ma kula muuqata in arrintani ay tahay tafaraaruq amaba iska hor imaad mas-uuliyiintii sarsare ee galmudug dhexdeeda
magacaase ma noqon doono haddii ilaahayd ma waayo golayaashii waxay ka midaysan yihiin takraaru maaha. waxaan ku yidhi golayaal baa meesha kan taliya, madaxweyne iyo ku-xigeen ma taliyaan. golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxay isku raacsan yihiin dhammaantood in shirka la tago. marka ma takraaru ma noqonayso. madaxweynuhuna markii uu yimaado ayaa loo socsin doona wixii dhacay iyo say u dhaceen. marka ma qaadateen go-aanka ah cid idinkaga qayb galaysa idin matalaysa? waanu qaadanay, ciddii ka qayb galaysana way noo tegi doontaa. ilaa qaaway ayaana wasiiro badan oo dibadaha jira iyo annagoo gudaha joogna qaabkii degdegta loogu tegi lahaa ayaanu hadda ku taga jirnaa. waana tegaynaa, waana qaadanay inaan shirkaa tagno. ma garan madaxweynaha ma ka mid noqonaya dadka tegaya oo ma ka dhaadhicinaysaan go-aanka aad qaadateen iyo in shirkan aad u aragtaan inuu yahay mid muhiima oo ay tahay in laga qayb galo? haddii aanu helno inaanu xiriirkeena haddii hawada oo iska xon iyo lambarkiisii oo badanaa hawada ka maqan baanu helay. haddii ay dhacdo waanu isku daylaha, laakiin haddii kalena waa laga dhaadhicin doonaa marka dambe haddii lahayd shirka la. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdisamed nuur guuleed oo khadka taleefonka ee magaalada gaalkacyo goor dhaweyd iigu warramayey.